taariikhda daraawiishta dhowr dhinac weyn oo taariikh ahaan laga fiirin karo ayaa jira waa marka ugu horeysay daraawiishtu waxay kamid ahayd dariiqo kamida dariiqooyinka suufiyada ee Soomaalida waa dariiqada saalixiyada waliba markii saalixiyada laba qaybood loo qaybinayo saalixiyada waqooyi saalixiyada koonfureed iyaduna waa islaadu dariiqada saalixiyada mid dheh dhinac kale marka laga eego daraawiishtu waxay dhaqdhaqaaq siyaasadeed oo isu taagay sidii gumaysiga la isaga caabin lahaa taasina waa qayb kale oo weyn daraawiishtu waxa kale lahayd dhinac kale oo weyn oo muhiim ah oo ah inay ahayd maamul deegaan ka talinayay marka saddexdoodaasba waa saddex waji oo daraawiishtu ay leedahay mid baynu isu kor taagi karnaa aynu ku horeyno kan hore طريقة يدو إسكا سهلا طبعا هو إسرائيل أنا وإسكو صار نقنقني سين لص عنا الطرق ده أما دريقوين ككل دوان صومالي ده وحاكم ده قادرية ده وحاكم ده أحمدية ده وحاكم ده سالحية ده سالحية ده طبعا وفرع كفرع عميتونا أحمدية ده iyagoo dhan ba isla wada suufiya taariikhda dhan ba isla wada suufiya marka saalixiyadu marka daraawiishtu saalixiyada markii waxa jawhar agaaraheeda ma xilligay soo galaysa qarnigii 19aad dabayaaqadiisii ayay dhulka Soomaalida soo gaartay waxa asaaskeeda lahaa Sheekh Maxamed Sheekh Maxamed Quuleed reer jawhar waa saalixiyada marka waqooyiga dhinaca waqooyiga marka Sayid Maxamed Cabdullaahi Xasan baa keenay marka halka marka laga hadlayo daraawiishtu waxay ahayd dariiqadii saalixiyada dhinaca waqooyiga iyo galbeedka Soomaalida asaaskeedii iyo hanaqaadkeedii inteedii balahayd markii dambe daraawiishtu meesha ka baxdayna dariiqadii saalixiyadu way koobantay waa laga yaabaa hadda meelaha qaar magac ahaan inay ugu hartay laakiin dariiqo kale weyn oo aad u sii fitay ma sii noqon marka qaybtaas waa qayb weyn oo marka dhanka laga dirsayo dhinacyo laga fiiriyo kale tay yeelan kartaa dhinacan kale ee isna aadka u weyn oo dhinacan aad markii looga sheekeynaya wuxuu aan dhaqdhaqaaq isu taagay sidii gumaysiga la isaga caabin lahaa markii laga sheekeynayo ururada ama ururadii Soomaalida ha noqdaan ama ha noqdaan wadamadii kale ee Afrika iyo wadamada la midka ah waxa weeyaan gobonimo doonku laba marxaladood laba waji oo waaweyn buu lahaa waxa weeyaan isticmaalkii oo doonay inuu dhulkan qabsado marka waxa jiray awoodo isu taagay sida isticmaalka isaga caabin lahaayeen si uu dhulkooda u soo galin awoodahaas way hubaysnaayeen wajiga kale labaad waxa weeyaan isticmaalkii uu yimid wuu qabsaday isticmaalkii oo haysta oo gudiga ku jira oo maamula yaa waxa la rabaa in la iska dul qaado wajiga labaad wuxuu hana qaaday dagaalkii labaad ee adduunyada kadib wuxuuna ku saleysnaa dhinac siyaasada yaani waa halgan siyaasadeed buu ahaa marka markii dhinacan daraawiishtu marka la eego marka waxay qayb ka ahaayeen halganka ballaaran ee gumaysiga la isaga caabinayo gumaysiga la isaga caabinayo maadaama gudiga soo galay wali ma soo galin uu soo galaya marka waxyaabuhu jooga laakiin inuu soo galo taaloonka hortag buu ahaa wuxuu ahaa iska caabin xoog leh ahaa marka hadii laga eego dhanka Soomaalida iyo hadii laga eego wadamadii kale Soomaalida ay wax wadaagayeen ba labadaba marka dhaqdhaqaaqa daraawiishtu qayb weyn buu ka noqonayaa hadaan ku horeyno wadamada kale Soomaalida wadaagayeen markaynu xilliga taariikhda aynu darsayno dabcan mar walba moogta waxyaabaha adduunyada ka socdo bay Soomaaliduna qayb ka tahay waxaasina way saameynayaan waxa ku jirtay marka wadamadii muslimiinta ahaa marka hore waxa ama si toos ama si dadban uga talin jiray boqortooyada Cusmaaniyiinta ama maamulo kale oo boqortooyada xiriir la leh oo ugu yaraan dusha ka muxuu heshada Soomaaliduna kuwaas ay kamid ahayd
qarniga 18aad iyo qarnigii 19aad awoodii way soo daciifaysay saldanada boqortooyada Cusmaaniyiintu marka saldanadihii kale ee dusha ka muxuu ahaa ka weheshanayay Yurubna awoodeedu way soo kordhaysay marka way ku soo fidaysay wadamada ku soo horeysay marka waxa kamid ah wadamada waqooyiga iyo galbeedka Afrika ayaa kamid ahayd inaga Soomaalida iyo bariga Afrika mar dambe ayaynu soo gali doonaa marka kacdoono ballaaran waxa jira marka wadamada ka hana qaaday oo isu taagay sidii gumaysiga isaga caabin lahaayeen hadii dhinaca galbeedka aynu ka soo bilowno waxa kamid ah Cismaan Daanfoodiyo Sheekh Cismaan Daanfoodiyo wuxuu isu taagay sidii gumaysigii soo duulay doonay inuu dhulkooda qabsado qoomiyad ballaaran oo Fuulaani la yiraahdo waxay ahayd dhinaca Nigeria iyo Cameroon iyo dhul dhinacaas oo dhan isku fidsan ah ayuu muddo dheer dagaalka hogaaminayay dadkeenu aad u naqaanay Jazaa'ir Abdulqaadir al-Jazaa'iri ayaa kamida waxa kamida dhaqdhaqaaqii kale Sanusiyiinta ku caan baxay dadkeenu aad magaciisa aad u naqaano waxa kamida Sheekh Umar al-Mukhtar Libya Suudaan marka loo yimaado waxa weyn Sheekh Mahdiga oo dhaqdhaqaaqii Mahdiga hogaamiyay marka dhulka Soomaalida loo yimaadana marka daraawiishta dhaqdhaqaaqa daraawiishta intooda badan dhaqdhaqaaqyada aynu tirinayno waxa muxuu ahaa qaarkoodna isku dariiqayba ahaayeen oo dariiqada saalixiyada aad wacyiga weyn ee gumaysi la dirirka aad u abuureysay barigaas sida Sanusiyiinta Umar al-Mukhtar iyo muxuu ahaa marka ala kulli xaal marka dhaqdhaqaaqa daraawiishtu dhaqdhaqaaqa gobonimo doonka ee qaybta ballaaran kamid ah ayuu ahaa marka dhulka Soomaalida loo yimaado waxa la yiraahdaa isticmaalka dagaalada lala galay waxay soo bilaabanayaan yani Ingiriiska iyo reer Berbera waxay isku dhaceen 1825 marka Ingiriisku marka Berberu soo weeraray taasina waxay dhashay in heshiis Ingiriiska la saxeexdo reer Berbera ay la saxeexdaan 1827 marka isticmaalku halgankaasi lagu leeyahay hubaysnaayo culus hadii laga soo bilaabo 1827 wuxuu socday ilaa 1927 markii boqor Cusmaan Maxamuud Baarga laga qabsanayo Talyaanigu ka qabsanayo dagaal culus kaas ugu dambeeyay gumaysiga laga hortago boqolkaasna marka halganka ugu weyn dhacay wuxuu ahaa halganka daraawiishta marka dhaqdhaqaaqa daraawiishtu dhinaca marka laga eego waxay ahaayeen halganka ugu ballaaran hubaysan muddada ugu dheer socday dhulka ugu ballaaran joogay halganada hubaysan ee kala duwan magacyada kala duwan watay xilliyada kala duwan laakiin qarniga ku kala dhex firirsanaa gumaysiga laga hortagay dabcan halganna yar yar baa ka dambeyn doona oo waxa la yiraahdaa halgan hubaysan cid isku dayda waxa ugu dambeeyay Sheekh muxuu ahaayay Sheekh Bashiir oo 1900 iyo dabayaaqadii afartanaadkii ahaa oo markiiba laga dhicisay laakiin dagaal la taaban karo 27kii 1927kii marka la qabsanayo saldanada boqor Cusmaan Maxamuud Baarga laga qabsanayo Talyaanigu ka qabsan doono waa sayidka 7 sano kadib ayaa ugu dambeeyay dagaal culus shorti kacdoonkaas ama dhaqdhaqaaqaas ama ururkaas hadii aan dhahno daraawiishta wuxuu ahaa urur dabcan intii aan taariikhda ku hayno sida adiga aad sheegtay labadii fikir ee aad sheegtay maadaama gumaysi reer galbeedka ay wadamada Afrika ay boobayeen in Yurub maadaama ay boobaysay in groupna intaan waxa la yiraahdaa biyeenta soo gaarin baa la iska moosaa inta soo wadanka soo gar in laga hortago kuwana markay gudaha soo galaan waxa waa sidii wadanka looga saari lahaa loogu xoroobi lahaa marka waxaad ku soo koobtay in iyagu ay ahaayeen kuwii ka faa'iideystay intii wadanka uusan la falgelin gumaysigu inay kaga hortagaan xeebaha ay asaas dagaal kula galaan kuwii isu taagay weyn dabcan ururo kale yani halgana kala jiray laakiin daraawiishtu dhinacan Banaadir iyo Biyamaal hogaaminayeen zoonka Banaadir baa ka jiray dhinaca Jubbaland waxba ka jiray meelo kale laakiin waxaan ugu keenay hadda waa ka ugu weyn marka la fiirsho Sheekh Xasan Barsana jiro markii dambe daraawiishta ka bacdi Jowhar zoonkeeda iyo ka kici doona fikirkan oo daraawiishta yaa iska lahaa horta
baraarug guud buu ahaa horta marka dhinaca laga sheekaynayo oo isticmaarku dhulkan ilaa moogtay dad baa deganaa maamulana way lahaayeen meel faaruqa ma ahayn reer Yurub oo waxa yimid doonay inay gumaystaan ay qabsadaan marka dadku way ka dhiidhiyaan marka halka marka la joogo waxa jiray dareen guud oo guud ahaan wadamadii isticmaarku uu qabsanayay ka jiray hadii dhinacan kale Soomaalida isku xaalad yihiin aynu ka qabanana waa wadamadan bariga iyo waqooyiga Afrika inta iyo saaxilka ilaa galbeedka isku waxay ahaayeen isku qaab bay u ahaayeen marka wadamadaasna dareen guud baa jiray oo ahaa in gumaysiga lala dagaalamo dareenkaasi xarunta ugu weyn ka soo burqanaya waxay xaramka Makka al-Mukarrama markay muslimiintu xajka isugu yimaadaan ay fikrado saadarteed sayidku waa kii muddo joogay ardayga ahaa markuu soo noqonayo buu dareenkan iyo wacyigana taban dadkuna uu jiray laakiin waxay kamid ahayd meel la isku dhiirinayo oo dareen guud oo wuxuu ahaa si guud u wada jira marka barakayn waa kii la yiri fikru ka soo dhoofiyay Saudi Arabia marka waxa ku jirta marka halkaas muxuu ahaa marka halka marka laga fiirsho qofka aasaasay isu taagay inuu arinta taabageliyo sayidku ah wuxuu ka yimid marka uu berbere ka soo degay kadib dareenkaas gumaysan nacaybku ka muuqday laakiin markii la yiraahdo taariikhaan loo sugo meesha uu daraawiishta ku aasaasay waxay u eg tahay meesha la yiraahdo Qoryo Weyn magaalada Caynaba ayay u dhowdahay marka meeshaas uu yimid markuu berbere ka yimid kadib waxay sanadkii 1898 markii ugu horeysay marka waa buu dhistaalay meesha marka wuxuu bilaabay inuu dad dariiqa oo ku aasaaso Soomaali inuu ku muxuu ahaay dariiqada uu ku ururiyo xer wax ku baro cilmigii uu halkaas marka taas marka waxay kadibna 1899 kiiba waxa bilowday iyagiyo Ingiriiski in xafiiltan oo markiiba Ingiriiskuna qoonsaday iyaguna una ku baraarugay khatartooda halkaas taban dagaalku marka uu ka yar dambeyn doonaa laakiin ala kulli xaal markii halka laga sheekaynayo asaaska markii taariikhda daraawiishta la yiraahdo asaaskeedu wuxuu noqonayaa marka 1898 in lagu aasaasay Qoryo Weyn waxayna soo afjarmi doontaa 1920 bishii December ayay ku soo afjarmaysaa deegaanka Imey oo sayidku ku dhintay xilligaas markaas halkaas marka waa muddada 22 sano dhow 22 sano iyo dheeraadka muddadaas uu socday markii taariikh ahaan loo eego halkan ka balaaran ee daraawiishtu dabcan sayidka dagaalo kala duwan buu galay dagaaladii uu galay si guud maxay ahayn maxaa ka xasuusanaa يوصل لقى ما قوميستيه كله حوا ودقال قاله سيدكو هرتا ثان أرتل معني دراويشتو ولباتن كاسنا كبدن لبي لباتن كاسنا كدوات لبي لباتن سنة كدوات أي جرين سجا المحو هاي يعني الدجال ugu badan waxay la galeen horta Ingiriis dadka kale islaaya waxa kamid ah xabashida meelaha dagaalo adigu culus yeena jirin laakiin ay wax dhex mareen xaalad colaadeed ba noqotay oo aad uga khafiifsan inta kale wuxuu ahaa Talyaaniga laakiin gumaysihan marka laga hadlayo cidda ugu culus ay la dagaalameen ay isu taagan in la dagaalamaan deegaanka ay joogeenna deegaanka Highland daraawiishtu deegaanka ka kacday waa British Protectorate waxay ahaayeen marka Ingiriisku ahaa mararka qaar kood dhinacii Talyaanigu uu gumaysanayay way soo yar galgalaan oo gaar ahaan xilliyadii dambe 1905 markii heshiiska ay wada saxiixanayaan laakiin dagaalka daraawiishta marka waxa la tilmaamaa dagaalka ugu ay galeen ilaa imisa dagaal bay galeen waxa lagu tilmaamaa ilaa 40 dagaal
inay galeen markii meelo la isaga hor yimid la tiriyo ilaa dagaaladooda ilaa 40 dagaal ayay ahayn dhowr iyo 30 ilaa yani 36 ilaa 42 qiyaastii 40 dagaal bay noqonayaan oo dagaalo culus oo dad badan ku leedeen iyo dagaalo fudud oo la isxabadeeyay oo wax la isku turtuuray iyo kuwa u dhaxeeya ayay noqonayaan dabcan kuwaas waa dagaalada culus ee gumeysiga dhexmaray sidoo kale dagaalo kale waxa jiray iyaga Soomaalida dhex marayay dagaalada iyaga Soomaalidu marka waxay u badnaayeen dagaalo ama iska fudud ama inta badan gacantu dhinaca daraawiishta ay ka socotay ama yani ciidan la abaabulay ma badnaan jirin laakiin dhibaatada ka dhalan jirtay waa badnaan jirtay marka dagaalada kale oo yar yar oo ku saabsana Soomaaliduna way jireen dabcan daraawiishtu ma de area ay si guud iyagu gacanta ugu haya markii Soomaaliya la joogay ka dagaalami jireen ba jiray mise guud ahaan gobolada Soomaaliya xilligaas way ka howlgalayeen daraawiishtu dabcan waxa lagu aasaasay meesha ay lagu aasaasay ay ku hana qaatay wuxuu ahaa deegaankan dhulkan loo yaqaan Hawd iyo Nugaal Hawd iyo Nugaal dhinaceeda Hawd xigta waliba dhinaca Hawd bay meesha ku aasaasantay iyadu meesha ay ku bulaashay ay ku hana qaaday ay ku tabarsatayna wuxuu ahaa Nugaal marka daraawiishta marka laga sheekaynayo xilliga hore waxay deganeed Hawd iyo Nugaal laakiin xilliyadii dambe meelo ay xarumo ka samaysatay ku fidatay oo dhinacan galbeedka ilaa iyo muxuu ahay Webi Shabeelle iyo Qoraxay iyo dhinacana way tagtay iyo Wardheer iyo dhinacan kaleetana ilaa Beledweyne iyo bay timid oo xarumo ka samaysatay dhinaca kaleetana Nugaalna way ku sii fiday ilaa Badda iyo Eyl iyo bay xarumo ka samaysatay sidoo kaleeto dhinaca Sanaag iyo Maakhir dhulkii loo aqoon jiray ceer gaabo iyo zoonkaasna way isku fidisay marka dhinaca marka laga sheekaynayo waxaan dhul weyn ayay dabcan ay gacanta ku hayeen saadarteed markaan leenahay dhinacyada laga darsi karo taariikhda daraawiishtu mid waxaan dhaqdhaqaaqii mugta waxa gumaysi iska caabinta dhinaca kaleetana waa maamul ama saldanad dhulka talinay marka waa maamul iyo saldanad dhulka talinay marka dhinacaas loo tago oo markii 1905 kaliya gumaysi ma ahayn 1900 waa wax iswada huwanun aslan mugtay gumaysigu waa wax dibadda ka yimid 1905 baa heshiis baa jiray oo nin Talyaaniga la galeen daraawiishtu 1905 bishii Maarch oo heshiiska Elig baa loo yaqaanaa Pestalozza ninkaas diblomaasiga baa qaban qaabiyay marka heshiiskaasi marka wuxuu keenayay in ay daraawiishtu nabad kula noolaadaan Talyaaniga Ingiriiska markii dambe soo raacay isna in nabad lagu noolaado daraawiishtana dhul lagu ogaado oo in iyagu dhulkaas ay ka taliyaan oo waa marka wuxuu u dhaxeeyaa dhinacan Hobyana waxa ka talinay muxuu ahaa Sultan Ali Yusuf dhinaca kaleete Baargaal iyo Caluulana waxa ka talinayay boqor Cismaan Maxamuud marka dhinacan muxuu ahaa Nugaal ay badda ka gasho iyo Eyl in dhulka dhexda ah badana daraawiishtu ay ka yeelato dhulka kaleete ee miyiga ee ku toosan iyagu ay marka ay deganaayeen ay ka taliyaan oo sida lagu ogaado dagaalka la iska daa Sultan Ali Yusuf iyo nin kale odaga ayay maamulan hoostagayeen may waxay kamid ahaayeen dabcan markii isticmaalku imanayay marka taariikhda dib loogu noqdo waxoogaa يعني laba boqortooyo waaweyn baa dhulka Soomaalida ka jirtay boqortooyadii Cadal iyo Ifat kala dambeeyay oo xarunteedu ay Harar Saylac iyo Harar laakiin Harar ku dambeysay waa dadka ugu caansan ee naqaan Axmed Guriye dagaaladiisii baa kamid ahayd xilliyadii dambe way sii khafiiftay wayna tabar dareysay waxayna ku ururtay Harar iyo Saylac iyo markan dambe gumaysigu imanayna Harar bay ku urursanayd boqortooyadan kale dhinacan ka jirtayna waxay boqortooyadii Ajuuraanka ayaduna qarnigii 19aad iyo 18aad way si kala furfurantay markuu gumaysigu imanayay saldanaad Soomaaliya baa jiray oo teel ahaa oo saldanadaha Soomaalida ma awood badnayn muxuu ahaayay ilaalada meesha ay ka heli lahaayeen boqortooyada Cusmaaniyiinta oo dusha ka ilaalin jirtayna way tabar dareysay oo sidii biyo sii koray dib ay isu sii ururinaysay dabcan oo wadamadan Afrika way ka sii urureysay oo Jasiirada Carabiga
iyadii reer galbeedku isku haysteen صح marka waxaa ka mid ahaa marka saldanadahaasi saldanadii Hobyo muxuu ahaa Sultaan Ali Yusuf uu joogay marka ugu dambeysay waxaa ka mid ahaa kasii horeysay saldanada Baargaal iyo caluule saldanada Majeerteeniya la dhihi jiray boqor Cusmaan Maxamuud saldanadii Galadiga ka mid ahayd saldanada Banaadir baa ka mid ahayd saldana yani marka saldanooyinka noocaas ahaa marka isticmaalku markuu yimid uu ku habsaday marka labadooda nisaas ay ahaayeen markii hore heshiis bay la galgaleen ka soo hareen saldanooyinkii waxa waa daciifay marka heshiis bay marka la galeen oo in nabad ku wada noolaadaan laakiin markii daraawiishtii la jabiyay oo daraawiishtu ay meesha ka baxday 1920 markii daraawiishtu ka baxday Sheekh Xasan Barsana haddana halgankiisii Jawhar Agaariyada ka bilowday isagana Talyaanigu waa kii qabtay oo halgankaas jabiyay ka bacdi markii wuxuu ku xujisiyay Hobyo ayuu sii qabsaday 1905 haddana wuxuu sii gaaray ilaa iyo Baargaal iyo caluule inuu sii qabsado 27kii halkaas ay marka ku dhamaadeen wixii inta ka dambeysay ma jirin marka daraawiishtu markaan leenahay saldanadihii kala duwanaaye Soomaalida ee gumaysigu ku habsaday mid ka mid ah noqonaysa dhulka weyn way ka talinaysay waana qaybta ugu fircoon dhinaca halganka hubeysan dhinaca kale hadii muddada laga hadlayo way ka duwan tahay